دكتورka farxadeena iyo moralkeena maanta wax la soo koobi kara maahan sababtoo ah waxa maanta noo fadhiyo miraha anaga aan ku soo tacabelnay muddo aan soo tacbeynay wujuudaha quruxda badan xilliyadii mirihii la guran lahaa qayb kamid ahna maanta aan wada joogno sida awgeed anaga ka waalid ahaan ah farxadeena farxad kooban ma ahan midada meesha aan ku soo wada sheegi karnaa ma ahan inta kadib waxaan rabaa inaan hambalyo u wada diro dhammaan ardada jaamacadda Frontier iyo kuwa maanta meesha fadhiyo una fadhiyo difaacashada buugooda qalin jabinta saa ogtiin waxa difaacaysa cilmiga lagu soo baray waxa ka tarjumaysa 4 sano waxa soo baranaysay waxa ka tarjumaysa maanta masiirkaaga mustaqbalka sidoo uu noqon doono waxa ka tarjumaysa kartidaada iyo wax qabadka mustaqbalkaada ay yeelan doonto sida ay noqon doonaan sababtoo ah muddo wax soo baranaysay marka soo baratayna waxa sameysay projectigi ama mashruuci lagu soo gabagabeyn lahaa oo ah mashruuca qalin jabinta ah haddana maanta waxa u fadhisaa mashruucaas muddo ay soo waday inaad difaacatid waa idin hambalyeynaya idinkoo dhan qaybihiina kala duwan haddii ahaan lahaydeen ardada ka socota kuliyadda caafimaadka gaar ahaan laabka iyo nursingka iyo ardada ka socoto geoscience-ka waxaan rabaa inaan fursadan qaaliga ah uga faa'iideysto أنا أقول بشارة يوم dadweynaha Soomaaliya in jaamacadda Frontier maanta ay u fadhiyaan inay buugooda difaacdaan dufcadii ugu horeysay Soomaali ahaan markii dawladdii dhexe ay burburtay ee ka soo qalin jibiya cilmiga loo yaqaan geoscience cilmiga loo yaqaan geoscience jaamacadda Frontierna way ku mahadsantahay initiative-kaas inay lead u noqoto inay hoggaan u noqoto hal abuurkaas inay hoggaan u noqoto jaamacado badan oo wadanka ka hana qaaday in faculty-gaas indhaha ay u furto ay tusiso inay hoggaan u noqoto in meesha ayada sahan ay ku sameysay in la wada qaado inay hoggaan u noqoto duurka aanan horteeda la sahmin inay sahan ku sameyso farxad weyn ay noo tahay wayna naga go'an tahay jaamacadda Frontier anagoo ah in markastaba khayraadka wadankeena in ka faa'iideysano aboodaha ilaahay anaga uu na siiyay laakiin anaga aanan garanaynin inaan exploration ama sahmin aan ku sameeyno way naga go'an tahay waxa naga go'an markastaba field cusub oo horteena aanan la sahminin inaan ku soo darno waxa naga go'an waxyaabaha kor u qaadayo dhaqaalaha Soomaaliya ugu horeeyo khayraadkeena inaan anaga sahminta koowaad anaga aan yeelano marka in jaamacadda Frontier hal abuurka koowaad ay yeelato dad badan oo kiyaalo fiican wax ay ku arkaan ay u geliso oo fildigaas la wada aado waxay u tahay sharaf karaamo iyo waxyaabaha aan ku faano annagoo ku hadlayno magaca jaamacadda Frontier in ay tahay muhiim in kacdoon waxbarasho inuu dhaco oo jaamacadaha ay ku tartamaan tayo waxqabad iyo badeecada la soo saaray inay suuqa ka gadmayso micna ma sameynayso inaan dhahno 22 kun oo arday aan hayna micna ma sameynayso waxa micna sameynayso laba arday aan soo saaray competitive inay yihiin sida hore aan u sheegnay jaamacadda Frontier waxa faan u ah dad badan oo aanan garanaynin micnaha geology oo kamid ah ardada freshka secondary-ga ka soo baxay marka la sameynay ololihii ama wacyigelintii ardada inay arday badan mentality-ga ka dhaadhacsana oo maskaxda inay meel kala aadaan inay ka bedeshay marka to understand the word of geoscience kaligeeda micno weyn noogu fadhiso in lagu fahamsiiyo wadankaada khayraad inuu leeyahay micno noogu fadhiso in lagu fahamsiiyo wadankaada in waxa loo burburiyay uu yahay khayraadka ku jira in laga faa'iideysto inuu yahay micno weyn kugu fadhiso sida hore idin kugu sheegay jaamacadda Frontier maalmahan waxay qaadaysay tilaabooyin horumar ah xiriirka caalamiga ay ku horeysay way sii ballaarisay waxay ahayd jaamacaddii ugu horeysay sidoo kale albaabka Turkiga furtay haddana insha Allah aan rajeynayno in macallimiin Turkiga jaamacadda waxay ka dhigaysaa semesterka soo socda Ilaahay raad insha Allah taas ayadana waxay noo noqonaysaa initiative kale sababtoo ah micnaheeda ma ahan in anaga ajnabi aan jecelnahay ma ahan laakiin ajnabiga waxaan naga dhaxeeyo cilmi
iyo khibrad